Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawadaha qiimiga badanow, maanta waxaynu hayaa barnaamij kaasoo aad ku xiiso gelin doona waliba la fiidiyo aad ku qancin doona. Isku soo noqod wanaagsan. Diyaaradii ugu horeysay ee la sameeyo waxay ahayd sanadii June 1986 waxaana isku dayay inuu kiciyo Ingiriiska waayo uu ku guuldareystay. Markaas waxaa ku xigay inuu sameeyo isla sanadaasi 10 nooc oo uu kala kicin karo diyaaradda oo kala duwan, qayb alwaaxa, qayb bir ah, qayb adikolbasiya, balse laakiin waa uu ku guuldareystay. Isla sanadaasi waxa uu bilaabay inuu soo saaro noocyooyin kala duwan. Isla sanadaas gudaheeda waa uu ku guuldareystay, laakiinse waxa uu soo saaray xilligii ugu dambeysay diyaarad ka samaysan alwaax iyo bir isku jirta. Waxa uu soo saaray professorro oo kala duwan, balse waxa uu ku guuldareystay inuu kiciyo diyaaraddaasi 1990. waxa uu soo saaray noocyooyin kala duwan. Waxa uu ku guuldareystay inuu soo saaro professorro waliba diyaaradda kiciya oo waliba hagaajiya, balse July 27 1909 waxa uu soo saaray noocyooyin cusub oo kala duwan. Dunida oo dhan cajab gelisa, balse waa uu ku guuleystay doorkani waayo waxa uu soo saaray duulaagii ugu horeeyay ee kiciya diyaaradda. Kadib waxa uu sameeyay inuu kiciyo, waxa uu isku dayay inuu kiciyo hawada korkeeda. Waa tijaabo ayuu ku waday, balse waa uu ku guuleystay tijaabadaasi waayo waxa ay hawada dul taagneyd 1 saac iyo 12 minute, waxayna u jirtay dhulka 150 feet oo kaliya. sidaasi ayuu ugu guuleystay inuu soo saaro diyaaradii ugu horeysay. Waxa uu isku dayay inuu duuliyo oo geeyo wadan kale. waxaa jirtay gabadha markaas ganacsadeeska ahayd, balse waa uu ku guuleystay inuu duuliyo diyaaraddaasi. waxa ay ka tuushay garoonka, waxay u tuushay dalkaasi India 1917. hase ahaatee waxa ay noqotay diyaaradii ugu horeysay ee abid intay garoon ka tuusho una tuusha garoon kale, balse laakiin waxaa lagu diiwaangeliyay inay diyaaraddaasi ahayd diyaaradaha ciidanka ee militarigu sameeyaan. balse waxaa la isku dayay haddii lagaga sheekeeyo taariikhda diyaaraduhu ay sameeyeen mise ay qisada ay ka soo mareen, madax ayaa ku xanuunaya. sanadadan aan soo sheegay waa tirada kooban ee saxan ee laga hayo ee u diiwaangashan ay qoreen professorradu, khaas ahaan injineeradu, khaas ahaan adiga qorayaasha caalamka ahaa ayaa qoray. balse ma jirto taariikh ilaa hadda gaaraysa rafaadka ay soo mareen diyaaraduhu. laakiinse waxaa jira caqabadooyin badan oo la soo gudboonaaday sanadaasi, balse waa ay ka soo gudbeen waayo hadda waxaa la marayaa casri la soo saaro gawaarida oo noqonaysa diyaarado oo la kiraysan karo. balse laakiin gaadhiga ugu horeeyay ee tijaabada la mariyo waxaa lagu mariyay dalkaasi Mareenka sida ay sheegeen warbaahinadu. balse laakiin in yaroo fiidiyoo ah oo lagu tijaabinayay shalay may ahayd. kilinkii hore ayaa la soo dhigay ayaan jeclahay, balse ma jirin wax ka yaabiyay caalamka. gaadhigan diyaaradda noqonaya kolba meel u soconaya, haddana gaadhigii oo isla meeshii una, balse laakiin ka tijaabo ayaa lagu sameeyay ilaa 200 feet ayuu kolba ku dul wareegayay. tijaabadiisiina waa lagu guuleystay, laakiinse ilaa hadda waxa ay sameynayaan maystiri horumar ayay gaadheen waayo waxa ay soo saareen wax ADIGA dadku waxay jecleynayaan. daawade haduu mahadsan tahay. haddii aad nagu cusub tahay subscribe saara, gambalaalka furo haddii uuna ku furayn. laabtuna waa dhankaaga, sheertuna waa dhankaaga.
waadna mahadsan tahay daawadaha qiimiga badan. fiidiyooga xiga khayr bayni rajaynaya.